tashay ku caantahay cirrooda tashay ku caantahay oo cadaalada bay ku caantahay hablayku aan tahay oo iscalool xaatayku aan tahay oo galmudug waxa ay ku caan tahay dhalinyaro cuddoon bay ku caan tahay oo cawrada iyo hablayku aan tahay oo iscalool xaatayku aan tahay
waxaan rabaa inaan xuso oo u mahad celiyo tanasulkii ay u sameeyeen inuu suurtagal noqdo maamulka Galmudug State maamuladii ka jiray gobolkaas oo u tanasulay inuu wax noqdo ama la midoobo ama gobolku yeesho hal maamul oo kaliya reer Galmudug waxa la idinka baahan yahay taageero run ah oo aan ahayn mid aan caawa halkaan la fadhino si gobolkaasi uu dhismo inaan garab istaagno dadka xilka adag loo dhiibay inaan ku boorino ku taageerno hareeraha ka galno hiil iyo hooba war diyaar ma u nahay waa mahadsantihiin wargeysiyaasheena xilka guud ka saarayo wargeysiyaasheena xilka guud ka saarayo gomaamuus loo qabiilkii ka soo gudbow heshiis gunta wada jirkeenaanu goomane gogol nabdeed fidiyo isku gooba shacabkayaga mada ahlu sunna wa jamaaca waxaan ka codsanaynaa inay bulshada u turaan inay bulshada darteed u tanaasulaan inay maamulka la shaqeeyaan wixii ay taban hayaana wada hadal lagu dhameeyo dantoodu waxay ku jirtaa danta Soomaaliyeed in la helo ayaa Galmudug danteedu ay ku jirtaa dad kasta iyo Soomaali kasta oo dantiisu waxay ku jirtaa Soomaali weyn Soomaali waa qof hadduu meel ka xanuunsan yahay jirka kale waa dareemaya waxaa la rabaa Soomaalinimadu inay shaqayso dadkan 25 sano riwaayadda cidlada ku jiray Galmudug inay u istaagtaa la rabaa waxaan halkan uga dirayaa tahniyad qaali ah oo xurmo mudan Galmudug State oo hadda dhalatay kuna soo biirtay dawlad goboleedyada Soomaaliya ka jira doonaysana inay qayb ka noqoto isla markaasna ay garab istaagto dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo soo celiyo sharaftii midnimadii iyo Soomaalinimadii waqti dheer gashay godka waxaan ku buurinayaa walaalahayga Galmudug State oo ay hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan shacabkooda anay garab istaagaan lana shaqeeyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sababtoo ah haddaan la helin dawlad dhexe oo xoog leh ma dhacayso midnimada Soomaaliya oo burburka 26 sano ku soo jirtay aan dib loo soo celiyo walaalayaal waqtiga oo laajligooda ugu yar waxaan halkan mahad guud iyo mid gaar ahaan uga celinayaa dhammaan martidiina caawa ka soo qayb gashay haddaad tihiin Galmudug State iyo haddaad tihiin reer Minnesota saaxiibadeena qaaliga ee Soomaaliyeed ee lagu soo sharfay caawana nagala qayb qaataan xafladan qiimaha leh ee lagu calaamad saarayo laguna soo dhaweynayo laguna taageerayo Galmudug State والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.